Wax badan ayay ka faafiyeen warar been abuur ah iyo sidoo kale inay yihiin lamaanayaal waqtigoon iska bixinaya. Waxay yiraahdeen gabadha waa madasho iyo sidoo kale midaan awlaad haysan, laakiinse wadajirkooda iyo noloshooda inay sii wataan ma aysan noqon hadalladaasi wax ka hor istaagi kara. Farxadooda ifaysa ayay sii ambaqaadeen, balse maanta farxad kale oo qiimo badan ayay wajahayaan. Dadkan ka hadlayo waa lamaanayaasha Liicato iyo sidoo kale Sumayo. Dad badan waxay ogyihiin in lamaanayaashan horaan ay isdoorteen, laakiinse waqtigay waayaha wehelka ka dhigay iyagoo laba meel oo kale fog ku kala noolaa ayay ahaayeen lamaanayaal aad isku jecel. Balse markaa noloshooda awlaad ayaa kusoo biirtay halkii laba qof ay ka ahaayeen, markaan 3 qof ayay noqdeen. Qoraal kooban oo Liicato uu kusoo daabacay boggiisa Facebook ayaa waxa uu ku yiri sidan: Alxamdulillaah, maanta oo ay taariikhdu tahay 6da bisha Febraayo 2023, Alla wuxuu noogu irsaaqay aniga iyo xaaskayga iyo familkeennana kusoo biirtay gabar, waxaana loo bixiyay Bilyan. Aabba macaan, kusoo dhawaaw duni lagaa jecel yahay. Allaha kaa dhigo mid diinteeda, dadkeeda iyo sidoo kale dalkeeda anfacdo, waalidkeedana baari u noqota, ayuu qoraalkiisa kusoo koobay. Dad badan ayaa u hambalyeeyay lamaanahan iyo sidoo kale waxay u direen tahaniyad la xiriirta awlaadda kusoo biirtay. Kuwii jeclaa kala tagooda iyo sidoo kale kuwii necba inay sii wada jiraan oo waqti ay sii wada qaataan, maanta waxay dareemayaan murugo la xiriirta in farxadda lamaanahan uu Alla ka dhigay mid sii siyaaday. Hambalyo ayaanu leenahay. Ku xirnow mar waliba Sharmarka Media.